dalka yaa iskale وسؤال داويني دلك يا إسكالي كداع دوامالي ودني قاد دلالالي كداع فعيالي ديدكي وداتشالي ديدالي بالمدى دونالي كان قبيل كديدالي بدني مدى دونالي كان ديدي هوشتالي كان لعب كسور سنو وحكستا وتقاتو وديك شري دحلي سالي بسم الله الرحمن الرحيم halkani waa telefishinka caalamiga ee Universal Studio ku yaala magaalada London daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij kamid ah barnaamijyada ra'yiga ee aanu idin soo gudbino alaaba iyadoo marka aanu uga hadalno fikirkiina aad ka dhiibataan qodobka aanu isleenahay markaas way ku haboon tahay daawadayaashu Universal TV inay la wadaagaan si toos ah ayaad uga dheehanaysaan Universal TV dacalada adduunka iyo waliba Facebooka Universal oo aad si toos ah u dheehanaysaan meel kasto aad dunida ka joogtaan barnaamijka dhinaca ra'yiga iyo maanta waxa uu ku saabsan yahay socdaalka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee dalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayay ay waqtiyadii ama maalmihii ugu dambeeyay ay ku marayeen dowlad goboleedyada Soomaaliyeed ee Puntland iyo waliba Galmudug labada maamul goboleed ee Puntland iyo Galmudug waxay ahaayeen labadii buddigaha oo ahaa marka la fiiriyo maamul goboleedyada ka jira dalka Soomaaliya marka la fiiriyo Puntland waxay ahayd maamul goboleedkii ugu horeeyay oo 1998 dhidibada loo aasay kadib markay isu tageen odayaasha iyo waxgaradka iyo aqoon-yahanka reer Puntland si ay nidaam iyo kala dambeyn u sameystaan Puntland dhinacyo badan ayay ka gaartay horumar marka la fiiriyo xagga siyaasadda xagga bulshada iyo waliba dhinaca dhaqaalaha iyadoo bulshada ku dhaqan iyo kuwa kale ee ka soo jeeda ee caalamka ku nooliba ay ku dadaaleen siday gaar ahaan u hormarin lahaayeen Puntland guud ahaanna dalka Soomaaliya waxaa soo maray marka la fiiriyo ee Puntland madaxweynayaal dhowr ah oo qaarna ay nool yihiin qaarna ay geeriyoodeen Allah u naxariiste Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayaa ugu horeeyay Puntland waxaa xigay Allah u naxariiste General Cadde Muuse waxaa xigay mudane Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud Faroole oo iminka ah senator ka tirsan aqalka sare iyo waliba madaxweynaha iminka mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas marka la fiiriyo dhinaca Galmudug waxa uu ahaa dowlad goboleedkii Soomaaliyeed ee xigay markii Puntland la yeegleelay iyadoo labaduba ay wadaag yihiin marka la fiiriyo juqraafi ahaan halka ay ku yaalaan Galmudug iyo Puntland waxaa dhidibada u aasay oo madaxweynihii ugu horeeyay ee arrinkan Galmudug oo ahaa raggii u tafaacay horseedka ka ah madaxweynihii ugu horeeyana noqday mudane Dr. Kimiko waxaa xigay mudane Maxamed Axmed Caalin waxaa xigay mudane General Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid waxaa xigay mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed iminkana Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa madaxweynaha Galmudug baaxadda ay ku fadhiyaan labada maamul goboleed ama dowlad goboleed ee Puntland iyo Galmudug aad bay u balaaran yihiin marka la fiiriyo degmooyinka iyo gobolada iyadoo waliba dhinaca xeebahana ay haystaan badweynta Hindiya qaybo kamida iyo badda cas shacabka ku dhaqan labada gobolba waxay muujiyeen muddo horena ay hore u muujiyeen ayna ka soo jeedaan dad iyagu kaalin wacan ka qaatay sidii xurriyadda dalka Soomaaliya loo gaari lahaa taasoo la hantay ugu dambeystii 1960kii magac ayay ku leeyihiin marka la fiiriyo mansab haday noqon lahayd nabadoono salaadiin ogaasyo iyo waliba dadka iyagu u ololeeya wanaaga marka la fiiriyo siyaasiyiinta dalka Soomaaliyana kuwii horseedka ka ah gobonimada iyo kuwii ku jiray baarlamaanadii kala duwanaa iyo hogaanadii dhinaca ra'iisul wasaarayaasha iyo madaxweynayaashuba waxay ahaayeen kuwo qaarkood ama aan oran karaba in badan ayaa ka soo jeeday Puntland iyo waliba Galmudug haddaba madaxweynaha dowladda federaalka ee dalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo wafdi hogaaminayo ayaa waxa ay tageen markii hore ee Puntland gaar ahaan iyagoo ku hormaray magaalada madaxda Puntland ee Garowe wafdiga ujeedkiisu waxa uu ahaa safar ay ku indheynayaan
ay ku xoogaalsanayaan oo ay ku xoraansanayaan waxyaabaha ka jira guud ahaanba siyaasad iyo dhaqaale iyo arrimo bulsho marka la fiiriyo labada dowlad goboleed. madaxweynuhu markii uu tegey ee puntland runtii waxay ahayd mid aad u muuqatay oo sidii la filayay si ka ballaaran weliba shacabka reer puntland oo aanay u kala harin inay wafdiga iyo madaxweynahaba ay soo dhoweeyaan oo ay muujiyaan siday u jecel yihiin dowlad wadaagnimada marka la fiiriyo ka qaybgalkeeda. haddaba wariyaheenna muslim xaaji caydaruus oo isagu ka mid aha wariyaashii in dhowaalaba soo tabinayey safaradii kala duwanaa ee gobollada iyo degmooyinka puntland ayaa waxa uu inoo soo koobayaa marka la fiiriyo socdaalkii madaxweyne farmaajo qaabkii loo soo dhoweeyey meelihii uu tegey iyo xaalku siduu ahaa. muslim xaaji caydaruus, daawasho wacan. agta xaaji aad ayaad u mahadsantaha. safarku wuxuu ahaa mid loogu magac daray safarka dib u heshiisiinta iyo nabadda Soomaaliya. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa booqashadiisii ugu horeysay ku yimid magaalada Garowe ee caasimadda dowladda Puntland 7 bishan ee ku guda jirnay koowaad 2018. booqashada waa tii ugu horeysay madaxweyne Farmaajo ku yimid noloshiisa gobolada bariga Soomaaliya ama Puntland. dadweynaha Puntland oo amoodid inay taageeraha ugu badan u hayaan dowladda nabadda nolol ayaa kumanaan dadweynaha waxay isugu soo baxeen fagaarayaasha magaalada caasimadda ee Garowe. airportka magaalada ayaa waxaa ka jiray mashquul saayid ah maadaama madaxweynaha jamhuuriyadda uu halkaas ka soo degayay. booqashada madaxweynaha ayaa sidoo kale waxaa ka mid ahaa inuu madaxweynaha furo garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Garowe oo noqonaya kii labaad oo caalami ah oo ay Puntland yeelato. madaxweynaha wuxuu gacan qaaday boqolaal dadweyne ah oo ka mid ahaa kuwii ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Garowe isagoona intaas kadib loo galbiyay magaalada gudaheeda. madaxweynaha ayaa si kalsooni ku jirto waxa uu u dhexlugayay wadada dheer ee magaalada dhexmarta ilaa iyo barxadda weyn ee caasimadda Garowe oo ay ku sugnaayeen kumanaan ka mid ah taageerayaasha madaxweyne Farmaajo. madaxweynaha ayaa saxaafadda kula hadlay xarunta qasriga madaxtooyada Puntland ee Garowe isagoona uga mahad celiyay soo dhaweynta ka turjumaysa dowlad jacaylka iyo kalsoonida. madaxweyne adiga iyo dowladdaada sida sharafta leh oo wanaagsan ee aad noogu soo dhaweyseen aniga iyo wafdigeyga. xaqiiqatan laba jeer hore yaan baajinay duruufo shaqo awgeed. maanta si aad iyo aad yaan ugu faraxsanahay inaan arko intaasoo qof oo reer Puntland reer Garowe ah inay sidaas wanaagsan ay noo soo dhaweeyaan oo ay jidadka taagnaadaan oo calama qoyan ay noogu soo dhaweeyaan. aad iyo aad yaan uga mahad celinayaa. aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay. halkan waxaan u imid inaan arko suu sheegay madaxweynaha xaaladda halkan ka jirta ay koow ka tahay inaan xoojino nabadda aan xoojino oo aan ka shaqeyno dib u heshiisiinta. intii uu joogay madaxweyne Farmaajo waxa uu kulamo la qaatay golaha xukuumadda, bulshada rayidka, ismada iyo dhalinyarada wax ka barata jaamacadaha ku yaala magaalada Garowe. madaxweyne Farmaajo ayaa safar dhulka wuxuu ku aaday gobol Karkaar magaalada madaxdiisa Qardho wuxuuna halkaas kula kulmay soo dhaweyn aan loo kala harin bulshada rayidka. maamulka gobolka kan degmada Boqor Burhaan Boqor Muuse ayaa Qardho ku soo dhaweeyay madaxweyne Farmaajo isagoona halkaas u guddoonsiiyay faras shaal sidoo uu ahaa dhaqanka boqortooyada. madaxweyne Farmaajo ayaa safar lagu magac daray safarka nabadda iyo dib u heshiisiinta waxa uu dhulka kaga bilaabay magaalada Garowe 22aad sano jiif Xaaji Khayr Dongor iyo Shire Qardho iyo Kayoko alxamdulillah Sheerbi Waaciya Xido Carmo Xeel Daahir Kalabayr isagoona madaxweynuhu tagay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. madaxweynaha Soomaaliya ayaa intaas u deegaan mid kasta uu tago wuxuu ka degay gaariga si uu la kulmo dadka deegaanka
ugana waraysto xaaladahooda nololeed. Madaxweyne Farmaajo ayaa soo dhaweyn ballaaran kala kulmay dadweynaha magaalada Boosaaso wuxuuna uga mahadceliyay soo dhaweyntii ballaaran oo u sameeyeen dadweynahaasi. Sidoo kale madaxweynaha ayaa ka dukaameystay supermarketyo ku yaala magaalada Boosaaso si uu caalamku u tuso in deegaanka uu yahay mid nabadgelyo ah. Madaxweynaha ayaa ugu dambeyn ka soo degay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Cabdullaahi Yuusuf Axmed ee magaalada Gaalkacyo ayaa tustay madaxweyne Farmaajo inay tahay magaalo shacabkooda u diyaarsan yihiin horumarka Soomaaliya. Kumanaan bulsho ah oo reer Gaalkacyood ah ayaa moodaa in ay isku dhaarsadeen soo dhaweynta madaxweynaha marka loo eego kumanaanka dhalinyaro halkaasi isugu yimid. Qaar ka mid ah dugsiyada waxbarashada ayaa la xiray maadaama halkaas uu booqanayay madaxweyne Farmaajo. Madaxweynaha ayaa kula hadlay meel fagaaraha dadweynaha magaalada Gaalkacyo wuxuuna ugu baaqay Gaalkacyo labada dhinac Puntland iyo Galmudug in loo baahan yahay in nabad iyo xasilooni magaaladan lagu soo dabaalo. Wuxuuna tusay magaalada inay ka soo jeedaan halgamayaal badan oo ka mid ahaa xornimo dirka Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa la kulmay qaybaha bulshada magaalada Gaalkacyo oo ay ugu horeeyaan ismada gobolka Mudug uu hogaaminayo Islaam Bashiir Islaan Cabdulle. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa magaalada Qardho waxa lagu guddoonsiiyay faras iyo hadiyado. Sidoo kale waaciye ayaa madaxweynaha lagu guddoonsiiyay neef geel ah. Carmo ayaa madaxweynaha laga siiyay dhul aad u weyn. Gaalkacyo ayaa madaxweynaha laga siiyay hal geel ah iyo waliba seef qaali ah. Madaxweyne Farmaajo ayaa moodaa hadda inuu yahay madaxweynaha hanti ku leh deegaanada Puntland. Dadweynaha Puntland ayaa moodaa inay taageero xoog la siiyeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Cagta xaajiyo markaa fiirisid social media waxaad arkaysaa dadweynaha Puntland oo baraha bulshada ku kala tartamaya gobol kasta ay qaabku u soo dhaweeyay madaxweyne Farmaajo. Dadweynaha Puntland ayaa moodaa in ay wali taageero xoog leh u hayaan xukuumadda nabad iyo nolol. Muslim Cayduruus Xaaji Xirsi Universal TV Garowe. waagaag aad iyo aad buu mahadsan yahay wariyaheena Muslim Xaaji Cayduruus oo Garowe joogay oo soo koobay socdaalkii ama safarkii nabadda heshiisiinta iyo horumarka ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu ku tagay guud ahaanba Puntland iyadoo reer Puntland aanay u kala harin soo dhaweynta haddii noqon lahayd madaxweyne Maxamed Cabdiweli Gaas iyo haddii ay noqon lahayd golaha wasiirada golaha baarlamanka isimada cuqaasha odayaasha iyo waxgaradka dhalinyarada iyo guud ahaanba ardada wax ka barata gobolada iyo degmooyinka Puntland. haddaba maalinimadii shalay ayuu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxa uu yimid magaalada Gaalkacyo isagoo horena u joogay qaybta Galmudug oo ay si aad reer Galmudug ugu tafaxayteen uguna diyaar garoobeen inay u soo dhaweeyaan iyadoo uu horkacayay madaxweynahooda Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo waliba senatarada iyo xubnaha kale ee baarlamanka ee labada aqal iyo maamulka gobolka Mudug iyo bulshada qaybaheeda kala duwan iyadoo ay ahayd midaan loo kala harin guud ahaanba Gaalkacyo marka la fiiriyo taasoo ka tarjumay heshiisiinta iyo nabadeynta guud ahaanba reer Gaalkacyo. haddaba qaabkii Galmudug Gaalkacyo looga soo dhaweeyay Farmaajo waa kan wariyaheena Cumar Maxamed Soomane. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo socdaalkiisa nabadda ku maraya deegaano ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya wuxuu xarunta madaxtooyada Galmudug ee magaalada Gaalkacyo uu kulamo kula qaatay madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo xubno ka mid ah golihiisa xukuumadda. kulamada ugu waaweyn ee madaxda Galmudug iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay ku yeelanayeen magaalada Gaalkacyo waxa ay diiradda ku saarayeen xaaladda nabadeynta dalka Soomaaliya iyo dib u heshiisiinta magaalada Gaalkacyo. dadweyne ka mid ah kuwa ku dhaqan magaaladan ayaa sida daadadkii oo kale u soo buux dhaafiyay wadada laamiga ah ee isku xidha magaalada ilaa madaxtooyada dowlad goboleedka Galmudug waxaana dhammaantood ay muujinayeen dhiiranaantooda ku aadan taageerida madaxweyne Farmaajo iyo xukuumaddiisa. Axmed Ducaale Geelle Xaaf madaxweynaha martida loo yahay ee Galmudug ayaa xarunta Galmudug ka sheegay ahmiyadda ay ka dhigan tahay in dadweynaha ku dhaqan magaalada Gaalkacyo uu meel fagaaraha kala hadlo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Galmudug maantay nasiib waxay u yeeshay inay maaragtay aad u soo dhaweyso madaxweynahoodii dowladda federaalka ah iyo wafdiga. marka ugu horreysa waxaan idiin sheegayaa madaxweynaha waxaan rabnaa inaan soo dejinno Gaalkacyo. dhulkii ugu horreeyana maanta aan ku kasayaana inaan siinaynaa dhulkii ugu silahaa insha Allah. waxaan rabnaa inay noqoto meeshuu beeshiga ku qaato mustaqbalka marka furaha ku jirto.
waxaan markaa aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dadweynaha iyo maaragtay maamulka iyo dadka aad iyo aad maaragtay bannaanka maanta u soo baxay oo halkan jooga waa idin salaamaynaa madaxweynaha waad soo dhowayseen wax allaaliyo wixii madaxweynaha aan uga baahannaana waa u dhiibaynaa maantay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magaalada Gaalkacyo ku micneeyay inay tahay magaalada dib u heshiisiinta Soomaaliya maadaama siyaasiyiin iyo xubno hore xilal uga soo qabtay dalkan ay ka soo jeedaan magaalada Gaalkacyo. waxaan rabaa magaaladan Gaalkacyo inay noqoto hooygii iyo hooyadii dib u heshiisiinta Soomaaliyeed. waa magaalo taariikhi ah, waa magaalo magac weyn, waa magaalo ay ka bilowdeen halgankii ugu horeeyay ee maxaan ku yiraahdaa xorriyadoonka dadkii ugu firfircoonaa ay ka yimaadeen siyaasiyiinteennii ugu wanaagsanaa ugu horeeyay Allah u naxariistay Cabdullaahi Ciise barnaamijka ugu horeeyay Soomaaliya barnaamijkii ku xigay Cabdirashiid Cali Sharmaake Allah u naxariistay oo kadibna noqday madaxweyne noqday Allah u naxariisto waxay ahaayeen runtii dadkii Soomaaliya midnimadeeda ka shaqeeyay oo ay ahayd inaan sii xoojino inaan wadno ma aha inaan dib u noqonno. socdaalka nabadda ee Farmaajo iyo wafdigiisa ay ku marayaan deegaano ka tirsan gobolada dalka imikase ay ku sugan yihiin magaalada Gaalkacyo waxay qayb ka tahay socdaalkiisa nabadda ee dalkan uu ku marayo. ha yeeshee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo wafdigiisa maalmaha soo socda waxaa la filayaa in socdaal qayb ka ah midka nabadda dalka Soomaaliya uu ku maro deegaano ka mid ah gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya. Umar Maxamed Somane, Universal TV, Gaalkacyo. وهجاج آدي أدبو ما تيجي وريهنا عمر محمد صومري أو وفدي مدحوين فرماجة للسعودية ملك السعودية تجانبا داوديال حلقان برنامج كان سيدا توسكا دوغدي هانيسان يونيفرسال تي في أيا مدحوين محمد عبد الله محمد فرماجي وفدي هوغامينيين waxay soo gaareen magaalada Cadaado oo ka tirsan Galmudug horena oo ahayd xubintii ama xaruntii kumeel gaarka ahayd ee dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug. reer Cadaado saaka waa berigii marka laga bilaabo uma aanay kala harin odayaasha waxgaradka aqoon-yahanka dhalinyarada iyo ardaduba inay soo marxabeeyaan oo soo dhaweeyaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyadoo waliba ay hor socdaan xubnaha ka socda aqalka sare iyo golaha shacabka ee iyagu ka soo jeeda Galmudug oo iyagu isu diyaariyay in ay madaxweynaha iyo wafdigiisa ka hortagaan shacabkoodana ay markaa hogaamiyaan. marka la fiiriyo booqashada uu Gaalkacyo kaga soo tagay dhinaca lugta ama gaadiidka uu ku socday madaxweynaha iyo wafdigiisu ayaa waxa u qorshaysan in safarkoodu uu noqon doono mid Cadaado kadib marka ay la kulmaan odayaasha waxgaradka iyo madaxda oo ay shirar kala duwan wada yeeshaan ay kadibna isu muujiyaan taageerada iyo baahidoodana ay muujiyaan sida gobolada la soo maraba ay u muujinayeen iyo ballanqaadyada in kadib uu madaxweynuhu beegsan doono biidnillaahi kariin xarunta dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ee magaalada Dhuusamareeb oo si aad looga diyaar garoobay iyadoo ay joogaan xubnihii aqalka sare iyo waliba xubnihii golaha shacabka iyo waliba iyadoo maanta soo gaaray wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Taabid Cabdi Maxamed. marka taas waxay ka tarjumaysaa inaan madaxweyne Farmaajo iyo wafdigiisa aan loo kala harin reer Puntland iyo reer Galmudug si ay deegaanadooda kala duwan ay ugu soo dhaweyn lahaayeen. haddaba daawade sidaad u aragtaa socdaalka dhinaca nabadda dib u heshiisiinta iyo horumarka ee madaxweyne Farmaajo uu ku kala bixinayo Puntland iyo Galmudug? arrintaasi waa arrin aad fikirkaaga fayow ka dhiiba kartid adigoo daawado Soomaaliyeed oo Universal TV ka dheehanaya meel ka mid ah caalamka. telefoonka ugu horeeya ayaan markaan u gudbayaa. salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. wagaag daawade waa socdaalkii lagu magacaabay socdaalkii dhinaca nabadda, socdaalkii dhinaca horumarka, socdaalkii dhinaca dib u heshiisiinta. degmo kasta oo uu tago madaxweyne Farmaajo waxa uu ka dhageysanayay waxgaradka iyo odayaasha iyo cuqaasha iyo aqoon-yahanka iyo madaxda sare ee degmo kasta xaalkoodu sida uu yahay arrimaha iminka ka taagan xagga nabadgelyada siyaasadda iyo waliba xagga arrimaha bulshada iyo iyada lafteeda oo uu madaxweynuhu uu ka codsanayay mar walba meeshuu tagaba inay dadku isku duubnaadaan oo Soomaalinimada ay u heliyaan iyo wanaagga taasoo ah mid aad iyo aad u wanaagsan iyo ballanqaadka ay sameeyaan shacabka Soomaaliyeed.
laynka telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معنا كجرة adaa ku jira walaal waa ku soo dhaweynaya magacaaga halkaad joogtid. أنا مقعي وحال ده خضراء إيساء وحنكون لهاي لندن حافظة كمدن haye يا بانو فرح سنة هاي وأنا كل راعي مدحوينها وحب السمية وحنا السومالوين قعد سنة عكس حاجيو إن إلهي كبقان si aan hore ugu soconana aan gadaal loo noqonin naga daayaan qoqobka iyo qurunka magaalada anigu galmudug baan kasoo jeedaa reer galmudug waxaan rabaa maanta inay muujiyaan nabadda Soomaaliya sidii madaxweynuhu u sheegay oo uu yiri meeshaan waa meeshii mudug bishil galmudug ay ka soo baxeen dadkii ugu horeeyay ee Soomaalinimada u horseeda marka walaalayaal waxaan baryaynaa in dadka reer galmudug maanta nabad bishil dhuusamareeb way jamaa iyo waxa is haysta ilaa caabud waaq balanbal in la madeeyo dadka inay dadku israacaan sidii aan ahaan jirnay asalkeena iyo farceena aan ka soo jeednay anagoo ah dad islaam oo ilaahay yaqaana walaalo ah oo wada dhashay adigana aad baad u mahadsantahay asaxay waagaag ugu dambaystii shacabka gudaha waanu aragnay laga soo bilaabo Garowe Qardho Boosaaso Gaalkacyo Cadaado oo iminka la joogo iyadoo ay diyaarsan yihiin qaybihii kale ee galmudug iyo degmooyinkii shacabku dadka gudaha jooga waanu aragnay dareenkooda dhibaatada iyo culayskuna ayagay ku dhacaan kuwa qurbaha jooga ee Soomaaliya iyagu aan arkaynin waxa ay arkayaan kuwa gudaha jooga iyo wanaagaad aragtay maxaad u sheegaysaa adigoo jooga Camden iyo London walaalo waxaan u sheegayaa annaga dadkeena gudaha ku jira dadkeena qurbaha ah oo ku nool London qurbaha ku nool waxaan leeyahay warhada cudurka London buu ku haray iyo qurbahaba balaaya kama jirto wadanku dadku wuu israbaa meel walba hadda hooyaday Muqdisho tagtay waxaan wanaag iyo ahayn khayrna kama aysan sheegin marka waxaan leeyahay dadkiina dibadaha joogo dayaco dadku haysto horta waa adinka dadka dalka u baahano dhaxantid iyo qabowgu dilay ubadkoodii walwalayo oo goorigaana waa adinka maslaxada qaata wanaagana qaata qof waliba meesha aad joogtid ducada ka hay khayrkana ka sheeg wanaagana ku hadaaq xumaantana naga reeb ilaahay ka baqa dadka qurbaha joogo waa midaysanay Soomaali baan nahay aan midowno aan midnimadayadii diyaaradii Soomaali Airlines baan u bukaa mar kaliya inaan fuulo aada u mahadsantaa walaal waan rajaynayaa waana ku mahad celinayaa goobaabadaada iyo ka qaybgalka barnaamijka laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. walaal waa ku soo dhaweynaya magacaaga halkaad joogtid magacayga walaal waa Maxamed Xuseen oo joogo Koonfur Afrika aad iyo aad u mahadsantahay cagma dhigay waa ku salaamaya Maxamed telefishinka iska gaabi sidaad u aragtaa socdaalka madaxweyne Farmaajo ee Puntland iyo Galmudug wallahi waxaan u arkaa wax wanaagsan waa madaxweynihiinii oo dalkiisii marba meel tagaya si wanaagsan ay u soo dhaweynayaan dadka aad iyo aad baan ugu riyaaqnay haddaan nahay dadka qurbaha joogo waana wax ku dayasho mudan oo madaxweyne kasta oo dalka soo maro loogu baahan yahay inuu sameeyo waagaag South Africa Soomaalida joogta dhibaato badan ayay ku qabaan South Africa waxaana dhibaatada keenay dagaaladii sokeeye haddii iminka madaxweynihii uu ku baaqay nabad iyo wanaag dalkiina uu nabad noqonayo dadkiina South Africa jooga maxay idin qorshaysan mustaqbalka dhow haddii abaydmo mustaqbalka dhow insha Allah waxaan u qorshaysan inaan dalkeena ku noqono madaxweynaheena iyo dadka Soomaaliyeed bala wada shaqeyno kulli haddana nabad iyo idin fiican ayaa noo muuqdo sidaan ku noqon lahayna waan ku guda jirnaa insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo waxa hadda dalka ka socdana waa wax aad iyo aad u wanaagsan telefishinka Universal ayaaba qayb ka horumarka dalka ka socda sidaan leeyahay aada u mahadsan tahay adigoo jooga South Africa waa ku mahad celinaya ma sha Allah laynka kale ee telefoonka iyo barnaamijkeena salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. walaal waa ku soo dhaweynaya magacaaga halkaad joogtid aad iyo aad magacayga waxaa la yidhahdaa Sharmaarke waxaan joogaa London waxaan rabaa inaan ka qayb qaato arrintan madaxweynaha iyo soo dhaweyntiisa haye sidaad u aragtaa socdaalka madaxweyne Farmaajo ee Puntland iyo Galmudug aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweynta anigu waxaan ka imid magaalada Gaalkacyo waxaan ahay labada dhinacba si isku mid ah ayaa loo soo dhaweeyay dadku waa wada faraxsanaayeen arrintan dibashisiinta oo wadana waxaan aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa dadka reer Gaalkacyo waa dad wada dhashay waa dad walaala ah dad isku mid ah sida aniga oo kale ayay labada dhinacba yihiin marka maxay ahayd aad baan ugu faraxsanahay madaxweynaha iyo imaatinkiisa iyo rajada dib u soo lanalinta arrimaha dibashisiinta waana soo dhaweynaynaa meelaha uu ku sii socdana waxaan ugu baaqaynaa inay taas kale u soo dhaweeyaan insha Allah
maadaama aad tiri magaalada gaalkacyo ayaan ka soo jeedaa soomaalidu markay xifaaltamayso ama ay kaftamayso waxay yidhaahdaan qofka gaalkacyo ka yimid waa dhib badan yahay laakiin ma u muuqataa soo dhoweynta madaxweynaha iyo ballanqaadka nabadgelyada iyo hagaaga in arrintaas ay beeninayso wixii dhib la sheegaya meesha ay ka baxayaan aada iyo aad cabdi xaaji waa run dad gaalkacyo waa dad firfircoon oo dhiig ku badan yahay oo maxay ahayto sida dadku ay ka sheegeen aynan u badnayn oo dadka anigu waa dhaweyd baan tegay dadku qalbiyan ayay u naceen colaada iyo dhibaatada iyo waxa dadku ay yani dhibaatooyinka soo maray waa dad usoo jeeda mar un ilaahay usoo diro maxay ahayd sida farmaajo kale nin oo madaxweyne daacad oo qalbiyan dadka u walaaleeya marka waxna waxa weyn aad baan ugu faraxsanaa inaan soo dhaweyno waxaan kale ugu baaqaynaa anigu reer galkacadaan nahay meelaha colaadaha laga soo sheegayo sida xuduudaha Soomaaliland oo kale in ilaahay dadka inaan dhibaateyn oo baaq yani nabadeed inaan usoo jeedino dadku waa walaalo sidaan u heshiinay inay iyagoo heshiiyaan dadka yani madaxdaaba hadhowta mas-uulka wixii meesha ka dhaca aad iyo aad baad umahadsan tahay adigoo jooga london barnaamijkana igala qayb galay laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ha waa kusoo dhaweynaya magacaaga halkaad joogto walaalo waa dhawaa cagmadhige xaylo uu joogo dalka Sweden xaylo waa kusoo dhaweynayaa sideed u aragtaa socdaalka madaxweyne farmaajo iyo wafdigiisa ee puntland ay ku soo mareen iminkana ay galmudug ku marayaan guud ahaanba deegaanadiisa walahi socdaalka madaxweynaha waa socdaal aad u fiican xilli loo baahnayo inuu kusoo aado waxaa la dhihi karaa socdaalkii nabadda ee madaxweynaha waa gartay waana socdaal aad loogu baahnaayo oo soomaalida aad u soo dhaweeyeen madaxweynuhuna wuxuu sameeyey xilligu ugu fiicnaay oo isdhihi kara soomaaliya maanta waxay u baahan tahay dibsishin u dhex dhigo ummadda soomaaliyeed waa gartay maxaa la gudboon raggiina xaylow aad ka mid tahay scandinavianka ama yurubta kale ama jooga dhinaca australia ilaa america ilaa canada yurubta dadkaas aan u bislayn nabadda iyo wanaagga maxaa la gudboon waxaana la gudboon dalkeena inaan soomaaliya taageerno inaan dowladnimada iyo nidaamka sharciga aan u helino si dalkeena oo u noqdo dal xasiloon oo sharciga shaqeeyo oo soomaaliyana dalkooda dib ay ugu laabtaan midda keliya aan u baahannaha waxay tahay inaan dalkeena ku laabano dowladana waa dowlad shacbi ah madaxweynaha iyo wasiir wasaarahana waa niman aad u fahamsan oo shaqeynaya marka soomaalida waxaan ku baahanahay inay dowladda taageerto garab aan siino meel walba aan joogno dowladda aan u helino dhinaca kale marka la fiiriyo socdaalka madaxweynaha ka sokow dadaallo xoogle ayaa socda isku xirka soomaaliya iyo wadamada caalamka dhinaca horumarinta dhaqaalaha heshiisye ayaa jira sida hadda markii kii ugu dambeeyey oo kaleo dhinaca turkiga oo yacni xoolihii soomaaliya amaba beerihii soomaaliya sida muuska waxyaabaha soo go-a arrintaas haddaad maqashay ogaantaas si aad u aragtaa wallahi cagmadhigo arrinkaas arrin fiican waaye arrimaha dadkii gelinaya iyo dadiilada gelinaayo oo noo dhaweynaya dowladnimadii ay kamid tahay dowladda maanta inay gacanta ku dhigto hawadeedii in heshiisya caalami ee gasho waxay caddeynaysaa soomaaliya inay caalamka kusoo laabato marka waxaa loo baahan yahay soomaaliya shacabkeeda inay midoobaan in dowladda la taageero dadka mucaaradka oo dowladda kasoo horjeedana in si fiican loola mucaamulo loolana sheego in mucaarad loo baahan yahay laakiin uusan naqanin mucaarad wax duminayo ama dadka iyo dalka dhibaato u geysanayo aad baa umahadsan tahay xayele adigoo jooga sweden waa ku mahad celinaya dabcan barnaamijkii ugu horreeya maha barnaamijyo kale ad igala qayb gashay kuwo kalena waa filaya biidnillahi kariim universal t v studioha london si toosa aad u dheehanaysaan barnaamijka dhinaca ra'yiga iyo socdaalka madaxweyne farmaajo ee puntland uu ku soo maray haatanna galmudug uu ku marayo fikirkaaga iyo ra'yigaaga iyo sidaad u aragtid socdaalka horumarka dib u heshiisiinta iyo nabadda laynka telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halo wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu cagmadhige adiga iyo bahda iyo afeer salba waa idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu wacalaykum asalaam waraxmatullah soo dhowow walaal magacaaga halkaad joogtid magacaygu waa cabaas bashiir xuseen waxaan joogaa waddanka sweden magaalada stockholm waa hagaag sideed u aragtaa socdaalka madaxweynaha iyo puntland iyo galmudug runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo socdaalka uu ku marayo ardiga ay maaragtay ka taliyaan puntland iyo galmudug waxaana rajaynaynaa insha allahu inuu kuwo kalena uu mari doono waa hagaag horey wuxuu u soo maray haddaad la socotid dhinaca jubbaland magaalada kismaayo waxaa kaloo uu tegey magaalada baydhabo dabcan labadan dowlad goboleed ee puntland iyo galmudug way u dhimanayeen soo dhoweyn wanaagsan baa ka dhacday dib u heshiisiin baa socota ma isleedahay labadaas dowlad goboleed ee puntland iyo galmudug marka safaradooda soo idlaadaan wax badan oo awal maqnaa ayaa qabsoomay
ma kula tahay arrintaas runtii cagmadhigow waxay ila tahay inay wax badan qabsoomeen sida muuqata iyo maaragtay masaafada dheer uu lugta ku maray madaxweynuhu dhowr maalmoodna uu lugtaas ku jiray waxyaalo badanna runtii uu maaragtay u qabsoomeen ilaa haddana la sugayo inuu maaragtay ku gabangabeeyo magaalo madaxda saan filayo galmudug amase maaragtay meelaha ay galmudug ka talisaba runtii waxaan filayaa wax weyn inay u qabsoomeen soomaali meel kastoo ay joogaan nabad iyo nolol ayaan rajaynaynaa dib u heshiisiin badanna wuu ka dhawaajiyay madaxweynuhu runtii markii uu ka hadlayay shirarka markasta wuxuu ka hadlayay nabadeynta inuu maaragtay uu magac daray safarkiisa aad baad u mahadsan tahay waa kuu mahad celinayaa ka qaybgalka barnaamijka universal t v iyo socdaalka madaxweyne farmaajo laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu cagmadhiga waa ku salaamaya mid lamid aan kuusoo gudbinaya magacaaga halkaa joogto walaalo magacayga waa cabdikariim cali cusmaan oo ku magac dheer qoslay waxaan joogaa bristol waa hagaag sideed u aragtaa socdaalka madaxweynaha ee puntland iyo iminka uu marayo galmudug wallaahi waa arrin loo baahan yahay oo madaxweynaha ku dhaqaaqay dadka bini aadankana waxay ka nool yihiin niyadda waxaa is leeyahay dowladnimada iyo niyadda shacbiga ayay soo celinaysaa kormeerka gobolada dalka uu sameynayo madaxweynaha waa hagaag marka la fiiriyo madaxweynuhu hadalladiisa waxaa ku badnaa nabadda in laga shaqeeyo in la heshiiyo dowladda in la taageero degmooyinka uu soo marayna haatan aan kula hadlayana uu cadaado lagu soo dhaweynayo saacaddan barnaamijkani uu socdo tooska ah ee universal in ay u muujiyaan baahida ay qabaan oo ay dowladda federaalka ka filayaan iyo madaxweynaha laftiisa oo ku gubaabinaya dadka dowladdooda inay tahay tii shacabka oo ay la shaqeeyaan siaad u aragtaa qoslaya arrintaas wallahi maxamed waa arrin aada u muhiimsan waaye gaar ahaan markaan ka hadlo gobolka galgaduud waan ognahay qeybo kamid ah waxaa haystaan nimanka nabaddiidka ee al-shabaab marka fursaddan waxaan leeyahay reer galmudug inay ka faa'iidaystaan madaxweynaha waxa ay uga baahan yihiin iyo dowladooda waxay uga baahan yihiin inay hor dhigaan madaxda galmudugna waxaan ayagana si toosa u faraa inay gacmaha isqabsadaan waxaana soo dhaweynayaa maanta in ay u fadhi doonaan ama beritoole isku darsanka isku darsameen labada caasimadood ee kumeel gaarka iyo midda rasmiga ah dhuusamareeb iyo cadaado marka waxaa is leeyahay madaxweynaha booqashooyinka uu ku sameeyo gobolada gaar ahaan galmudug waxay u noqonaysaa fursad aada u weyn haddii ay sida ay tahay oo dowladnimada ay uga shaqeeyaan inay madaxweynaha kusoo dhaweeyaan marka codsigooda ha ku daraano sida looga xorey lahay gobolada kale ee degmooyinka kale ee ka dhiman galmudug marka aada usoo dhaweynaya aad baad u mahadsan tahay adigoo jooga bristol laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam soo dhawow walaal magacaaga halkaa joogtid walaal magacaan joogo waa garowan joogaa walaal macaan cagmadhiga aad baan kuu salaamaya barnaamijka ka galo universal t v london aad baan kusoo dhaweynaya anigana waa kusoo dhaweynaya adigoo garowe jooga magaala madaxda puntland waad joogtay markii madaxweynuhu yimid dabcan ka waran dareenka shacabka aad kamid tahay wallahi saax meeshaan joogno horta aad baan lagu xirnay meheradii anigu aan joogay waa xiray haddaan kula hadlay meheradeyda calaamaad ka laalaabo waxaa la dhahaa e-business baa la dhahaa ma garan si fiican wa dadka garow jooga dhan u yaqaanaa sawiro badan oo ku arkay iskuulla madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka aad baan ugula dhaxnay soloweedka ma garan ya aad baan uga soo qayb galay waa ka shaqayseen maasha allah looma kala harin looma kala harin waa soomaalida ee meel walba ay joogaan waxaan leenahay soomaaliya way israacday wixii mucaarad oo waxaan leeyahay nagu soo biira soomaaliya ha midowdo aanu ka baxno sidii lixdankii oo kale swel oo kale waanu baxnay haddana insha allah waxaanu rajaynaynaa wadadii nabadda iyo horumarkeena cagsi saarnay baan rajaynaynaa insha allah soomaaliya waa hagaag aad baad umahadsan tahay adigoo jooga garowe magaala madaxda puntland oo madaxweynuhu safarkiisa uu ka bilaabay laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam cabdi xaaji waa ku salaamay waa batuulo xaashi waa ku soo dhaweynaya batuulo xaashi ka waran socdaalka madaxweyne farmaajo ee puntland iyo galmudug wallaahi waa wax wanaagsan oo dadka soomaaliyeed oo walaalaha isugu soo dhawaanayaan oo quluubta ku daahirsamayso waa wax la sugayey oo la saadaalinayey oo sharaf iyo cid iyo walaalnimo ku jirto waxaan aada ugu faraxsannahay gaalkacyo labadeeda geesi laysku furay waxaan aada ugu faraxsannahay galmudug inay israacday oo walaala noqotay oo labadii maarta murankii dhammaaday waxaan ku faraxsannahay madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo
tallaabooyinka wanaagsan isaga iyo xukuumaddiisa khayra iyo ay wada wadaan wax wanaagsan baa noo muuqda waxaan walaalow rabaa waxaan rabaa inaan cagta xaajiyo wax yar kaa idhaahdo dadka dalkeenna kusoo indhacad oo walaal kusoo socda oo khayraadkeenna u col ah ilaahay waxaynu ka baryaynaa inaanu iska qabanno caqli inaynu yeelanno dalku waa buuxaa nimcada taalla ka faa'iidaysano dhallinyaradeenna iyo waayeelkeenna iyo ciidankeenna iyo caqligeenna isu geysano cagta xaajiyo walaalow waxaan kaa baryaa wax yar ii kaadi waa ku siinayaa fursad waxaad u egtaa may maqashaa batuula xaashi si fiican baan kuu maqlaa xalaal maadaama aad dadka guubaabisay tix yar haddaad ma tirin kartaa oo aad kula hadlaysid guud ahaanba soomaalida haddaad taanis siiso waan tirinayaa tix baan tirinayaa haddaad taanis waa ku siiyey bilow batuula xaashi bilow khayr allaha ku siiyo imaaraadka iyo carabay ammaanna sii arlada noo dhaafa ciideenna aaminka arlada noo dhaafa ciideenna aaminka abaarihii iyo dhibtii eebadiinna helay waydinkii eeganayoon marnaba arxamin islaamnimo iyo asxaan toonna kuguma arag ee aafadaad geysatoo meel walbaba il daran imaaraadka iyo carabay ammaanna sii oo hana daayeen carabi hana dayso dhulka iyagaan qodanaynaa shalayta waxa carabta caawimayay dawladeennii bay ahayd oo wax walba halkaa uga diqadiqaynayay maanta waxay yidhaahdeen yaan dabku idiin bixin laakiin waxaan la hadlayaa nimanka soomaaliyeed oo dabada ka soo wada ee xuduudaha ayaa kusoo riixaya ee badaha iyaga iyo dekedaha ayaa kusoo hurgufaya hanaga joogsadeen hadday ilaahay yaqaaniin ilaahay baa mar walba meel ku irsaaqa ilaahay baa irsaaqadayadana siiyey cagta xaajiyow aad baa umahadsan tahay haya batuulo xaashi aada umahadsan tahay inaad barnaamijka aad igala qayb gasho waa kuu mahad celinaya laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu cagta xaakim waa ku soo dhaweynaya magacaaga iyo halkaad joogtid walaal cabdinaasir jibriil cali cabdinaasir halgan waxaan joogaa magaalada boosaaso haye soo dhawow sideed u aragtaa socdaalka madaxweyne farmaajo ee puntland iyo galmudug wallahi runtii aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo socdaalka uu ku marayo deegaanada soomaaliyeed runtiina wax loo baahnaa loona baahnaa mar hore in lagu kaco laakiin anigu cabdi xaakim waxaan rabaa inaan mawduucyo ka hadlo haye waxa weeye mawduucan ah macnihii madaxweynuhu dowladda markuu maraya deegaanadan ma u ahayn ma ahayn muxuu ahaa socdaal siyaasadeed ee wuxuu muuqday socdaal macnihii dul barasho si fiican saas daraadeed marka halka anagu reer puntland rabnay inuu ka hadlo madaxweynuhu arrimahan muxuu ahaa dekada heshiiska dekada boosaaso iyo arrimaha muxuu ahaa jiriifkan xeebaha puntland iyo arrimo kale oo badan oo udhexeeya puntland dhexdeeda ka jira oo arrimo siyaasadeed oo aan dowladda puntland awood u lahayn balse mataqaana awood siyaasadeed waxaa dowladda federaalka dhexe u leedahay ah oo aan muxuu ahaa maamulka puntland isagoo maamul ahaan ku awood sheegtay marka halkii loo baana in madaxweynuhu arrimo siyaasadeed uga hadlo baan uga hadlin laakiin socdaalku muddo kooban buu ahaa dabcan madaxweynuhu xogta waa hayaa ka jirta waxaa dhici karta inaadan degdegin oo ay arrintaasi soo socoto maxaa yeelay arrimaha siyaasadda arrimaha bulshada iyo arrimaha dhaqaalaha dhulka oo maray oo dhanba wuu xooraansanaya wuu la soconayaa wafdi baa la socda oo qaybo kala duwana mas-uuliyiin baa la socota xildhibaanaha la socda wasiiraha la socda intaasi dhanba xog bay ururinayaan taad sheegtay ay ka qayb noqon karto marka la laabto ayaa arrintaas laga baaraandegi karaa kadibna dib loogu soo celin karaa waxyaabaha aad tabanaysaan marka ma istiri inaad sugtid way ku fiican taha adiga iyo kuwa kale kugu fikirkaa cabdi xaashi ha laakiin maaha madaxweynuhu ma ahayn dadka xaqiiqda dhabta madaxweynuhu soo soo dhaweynaya ma ahayn madaxweynuhu wuxuu qol la galay odayaal dhaqameed oo muxuu ahaa siyaasiyiin kaliya wuxuu la galay qol la galay kadibna iyaga unbuu waraysi qaaday laakiin dadkii xogta dhabta iyo xaqiiqda ogaa ma uu waraysan dibaddana uma soo bixin waraysan lama yeelan kale madaxweynuhu ma ahayn socdaalkan mid uu macnihii ugu guurdaray waayo waxaa ku xisanaysaa calaamadna u ah inuu madaxweyne had iyo jeer isagu siyaasiyiinta mooyaane aanu dhalinyartii waraysan oo bulshadii ganacsatadii iyo dadkii micni xoogaalka arrintan u ahaa ma dhici kartaa waa hagaag ma dhici kartaa madaxweynuhu maadaama iminka uu soo maray guud ahaanba puntland galmudugna iminka uu marayo dhowr bilood kadib biidni illaahi kariim inuu dib u soo laabto isagoo wakti fiican haysta arrintaas ma sugi kartid miya may way dhici kartaa laakiin waxaan leenahay madaxweynaha
mar hadduu socdaalkan maray oo wax badanna sii arkay siyaasiyiintiina uu sii arkay waxaan ku rajo weynaa insha allah inuu markaba soo noqdo muxuu ahaa deegaanada soomaaliyeed ee kale macnaha weli jiraan dhibaatooyinka badan insha allah waxaan ku rajo weynaa inuu insha allah tacaala aad iyo aad aada umahadsantaha adigoo jooga magaalada boosaaso inaad barnaamijka igala qayb qaadato laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. cabdi xaaji waa ku soo dhaweynaya magacaaga halkaa joogteed. xaliimo aadan baa lay dhahaa waxaan joogaa london. waa ku salaamay waad mahadsan tahay cabdi xaaji aad iyo aad baad u mahadsan tahay akhbaaraha fiican ood noo soo gudbinaysid annaga waxa weeye waa ku faraxsannahay madaxweynahayaga iyo intuu qabtay iyo intuu marayo aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. waa hagaag markaad fiiridid maalmihii ugu dambeeyey universal waxa ay tabinaysay degmo kasta iyo tuulo kasta oo puntland ilaa galmudug uu marayey. saacadda aan kula hadlayo xaliimo aadan waxa uu yimid cadaado oo si heer saraa loogu soo dhoweeyey. waad garan kartaa jacaylka ay bulshada u qabaan xukuumaddooda iyo madaxweynahooda. sidee adiga fikirkaas maxaad ma filaysay adoo jooga london in sidaas oo kale loo soo dhoweynayo madaxweynaha? wallaahi cabdi xaashow haddaan arrinta kuu sheego arrinta tan aad iyo aad bayba annaga waxay noo gelisay farax aadan malayn karin iyo arrin aanna madaxa ku hayn intaasaas in loogu soo dhaweynayo madaxweynaha galmudug iyo aagiisa aad baan ugu faraxsannahay. ha noolaadee reer galmudug, ha noolaata soomaalidu, ha israacdo wiswisga iyo walaaca iyo dagaalka iyo balaayada iyo xumaanta allaha naga saaro. kii wadanka afaca allaha ka dhiga farmaajo, kii ciidiisa hanta allaha ka dhigo. ciidiisa iyo wadankiisa iyo calankiisa mas-uuliyad buu qaaday iyo dhaar. waxaan rabnaa siduu u dhaartay inuu uga soo baxo. waa raacsannahay, waa garab taagannahay, waa ku faraxsannahay. soomaalidana allaha isu soo diro oo allaha isu soo hadeeyo oo badbooda burcad allah isku wadankayaga iyo ciidayadii noloshaan ku noolaan jirnay allaha noo soo casho. cadowga nahaarigayana allaha naga qabto. waxaan leeyahay farmaajo noolow adiga iyo inta kula shaqaysa wadankaaga daacad u noqo, ciidaada daacad u noqo, calankaaga daacad u noqo. cadowga badaheena guranayana ilaahay waxaan ka rajaynaynaa gacan cadowgaasi qacan bira ilaahay inuu nooga qabto. raggayagana wadankooda inuu tuso oo ciidooda iyo shicibkooda iyo dadkooda in ilaahay subxaana watacaala tuso oo magaxumadaa nagu dhacday ay naga dulqaadaan oo ciidayada saan waa ahaan jirnay. soomaalida mudug degtana waxaan ku leeyahay war daris baynu ahaan jirnay, war walaalahaynu ahaan jirnay, war dabkaan kala qaadan jirnay, war xoolahaan kala soocan jirnay, war ciidda war ceeshaan kala cabi jirnay. war sidii ku soo noqda colaad waxba ii tari mayso haddaa islaysaan cadaabta aakhira in haysata. cabdi xaaji aad baad u mahadsan tahay. ugu dambaystii intaadan ka bixin xaliimoy dadka colaadda ha joojiyaan baa tiri, reer mudug waxa waaye dad walaalaa baa tiri, nabadda ha loo hiiliyaa tiri. ma isleedahay haddaan kula kaftamo cunista hilibka subaxii lagu quraacanayo beerka, duhurkiina hilib ari la cunayo, habeenkiina suqaar ama isteeg, hilibkaas la cunaya inuu dagaalka keenayo ma kula taha haddii vegetarian la noqdo in la fiicnaanayo? arrinkaa ka warran. cabdi xaashi horta waad mahadsan tahay. beer iyo canjeelo inaan isku cunno waa hidiya dhaqankayagii, hilib ari inaan cunnona waa hidiga dhaqankayagii. kuwa annagoo cunayna ayaan wadankayaga wax u qabsan karnaa oo daacadda qalbigayaga ka soo goyn karnaa oo ciidayada u hiilin karnaa. maaha vegetarian inay naga dhigayso qolo kaleeto. arigaan cunnaa oo geelaan cunnaa oo xoolaha yagaan raacano oo islaam baanahay oo waxa weeye reer mudug reer horta waxaa u tahniyad u dirayaa reer galmudug oo dhan meesha ay joogaan iyo reer mudug oo dhan iyo in allaale intii madaxweynaha soo dhaweysay. farmaajo ha noolaado, ciidiisa ha hanto, wadankiisa ha hanto, cadowgiisana allaha qabta. ilaahay saasaan ka rajaynayna. aad baad u mahadsan tahay adigoo barnaamijka igala qayb galay. dabcan biidni illahi kariim barnaamijyo kalena waan ka qayb geli doonaa. halkaad weli nagala socotaan waa telefishinkeena caalamiga ee universal stuudiyaha ku yaala london iyo barnaamijka ra'yiga oo daaran kuna saabsan socdaalka madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo wafdiga hogaaminaya ay ku gaala bixinayaan puntland oo ay soo gebagabeeyeen iyo weliba galmudug oo ay iminka bartamaha uga jiraan. fikirkaaga fiyow ka dhiibo sidaad u aragtid safarada dowlad goboleedyada madaxweynuhu uu ku marayo labadaasba. laynka kale ee telefoonka. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمدك والسلام يا ولاal. aad mid lamid aan kuusoo gudbinaya magacaaga halkaad joogto walaalo. magacayga holab baa kaa soo wacaya Zaynab Cabdilla la yidhaha. haye waxa weeye safarkaas waa dabeel caafimaad. si fiican. ilaahay subxaana watacaala qalubteena hoosada cudurka allaha naga bixiyo. caalamkeeni baa hawada maraya, soomaalinimadii baa soo noqotay. inta jiranna ilaahay qalbigooda ha daweeyo.
ilaahay subxaana watacaala cudurka inuu naga saara ilaahay ka baryaynaa salaad shukri baa nagu waajibto inaan qur-aan akrisanaa nagu waajibno ilaahay inaan umahad celinaa nagu waajibo cudurkii baa naga baxay waa dawo inta qalbigooda waxa iyo qabiilka iyo qurunka ku jirana allaha ka bixi baan leeyahay aad baa umahadsan tahay dabcan waa duceysay allah ka aqbalo barnaamijka ka qaybgalkiisana waa kaaga mahad celinaya laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halo halo waxaan marayaa waalkii soo dhawow magacaaga halkaad joogtid waxaan joogaa Germany baan joogaa waa maxamed cabdi weeyaan maxamed cabdi soo dhawow haye socdaalka farmaajo ma la socotaa adigu si fiican baan ula socdaa cagta xaaji waan ku salaamay marka hore marka labaad maasha allah waxaan leeyahay waa guul iyo gobonimo maanta dee kulley qofkii damiir iyo wuxuun leh yani juruuca kaa kacaysa markaad waxaa aragto waxaad arkaysaa inuu qarankii soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed in ay ismaqleen ay isku duba dhacday marka insha allahu tacaala aad iyo aad waxaan waa wax lagu farxo oo mataqaana ilaahay halkaa ay maanta taagan yihiin kama soo celiyey waxaan leenahay hore qaranku waa u socdo aad iyo aad shacabku mataqaana meel uu joogaba shacabka soomaaliyeed gacmaha ay isqabsadaan aad iyo aad waxa mataqaanaaye nabadda iyo mataqaanaaye nolosha ayaa isku xidhan waxa mataqaanaaye adduunka oo dhan u dana unba soomaaliyana u dana adduunka oo dhan nabad baa u dana horumar baa u dana hadduu horumar yimaado qof walba halkiisa ku gaaraysaa mataqaanaaye waxa uu rabi si fiican ummadda waxa deeqi waa cadaaladda waa isku filaashihi iyo wadaninimada marka insha allah waxaan muuqata mataqaanaa ifasaalo fiican baan arkaynaa shacabku ilaahay mataqaanaaye shacabku isku qulub furan yihiin waxaan leenahay bal siyaasiyiintana shacabka inay la jaan qaadaan ma ka rajeynayna insha allah oy dareenka shacabka ka turjumaan aad baad umahadsantaha adigoo Germany jooga telefonka waa gabagabo daawadayaal barnaamijku laakiin dabcan ma noqon doono barnaamijka ugu dambeeya noocan oo kale ah bal aan soo qabto labada telefoon ugu dambaysa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam soo dhawow magacaaga halkaad joogtid agta xaaji walilida baadiyow xaggeed joogtaa baadiyow waxaan joogaa wembley soo dhawow baadiyow sideed u aragtaa socdaalka madaxweynaha wallahi horta niyow si fiicanaan u arkaa waxaana horta u mahad celinaa university siday dawladda u taageerto qaas ahaan cagmadhige dawladda taageeradeedu waa wax caadiya laakiin annagu barnaamijyada aanu daynaa waa barnaamijyo dabcan dadkana daawanaya sida adigaba aad uga qaybgelaysid ay uga qaybgelayaan marka taa kadib maxaad odhan lahayd wallahi niyow horta ilaahay guul ha siiyo laakiin madaxweynaha waa hagaag aad buu umahadsan yahay baadiyow may war cagta ha goynin haye waad iga tagtay waxaan ku leeyahay walaal waxaan rabay ina kaala hadlo ha hadda soomaaliya gaalkacyo iyo mudug maaha aawa beledweyne weli lama gaarin waxaad moodaa inaad degdegaysid baadiyow juqraafiga soomaaliya haddaad la socotid gaalkacyo waxaa ka sokeeya intaasoo magaalo arrintaa ma og tahay weli wax ka sheekeynaya ma arkin safarkiisa wuxuu ku egyahay gobolada lama dhihin annagu weli xogtaa ma hayno waxaan daynaa wixii dhaca ma saadaalin karno laakiin waxaan u aragnaa safar dheer oo ka soo bilowday ilaa puntland ilaa galmudug kuna soo socda ilaa muqdisho aan ka war sugno baadiyow ma kula tahay aniga adigu london aan joognaa aad iyo aad aadaa umahadsan tahay aadaa umahadsan tahay laynka ugu dambeeya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halo halo ha soo dhawow walaal magacaaga halkaad joogtid walaal waxaan joogaa london baan joogaa ha soo dhawow walaal barnaamijka sead u aragtaa safarka madaxweynaha safarka madaxweynaha horta madaxweynuhu aad buu u mahadsan yahay in dalka dadka iyo maaragtay lasoo ogaado xaaladda ay ku nool yihiin aad bay u fiican tahay laakiin anigu ma aaminsani wax saas usii weyn oo lasii baabuuniyo inay tahay waayo ummadda soomaaliyeed inta loo tago oo loo qodbeeyo han ka weyn bay u baahan yihiin ma garatay aad iyo aad laakiin madaxweynuhu inuu soo arko ummaddiisa kadibna baahida ay dhegaystaan iyo wixii jira kadibna waxqabadkii loo dhaqaaqo arrintaa maxaad ku diidantaha adigu maya waxqabadkii in loo dhaqaaqo way ku fiican tahay oo hore loo sii socday ma diidani laakiin waxaan maaragtay sidii maaragtay hore loogu yaqaanay madaxdii hore inta laisku soo baxo laisku soo sawiro leera dadkiiba ay jecelo oo maaragtay taa uma arko anigu dadkiiba ay jecel waxaan arkaynay puntland degmooyinkeeda goboladeeda
tuulooyinkeeda ummaddu si niyaday madaxweynaha u soo dhoweeyeen way wada hadleen baahidooday sheegeen baahida dowladday u sheegeen galmuduguu iminka maraya uma aragno ay leeyihiin dadka ila hadlaya barnaamijka haddaad daawanaysay waxay u arkayeen tallaabo aad u wanaagsan oo u baahan wixii layska arkay laga hadlay in waxqabadkeedana la muujiyo marka adigu taa soo ma degdegaysid aragtidayda maya horta aragtida qof walba aragtidiisu hadlaya qof walba aragtidiisu hadlaya sida ila muuqato si fiican in lagu qadariyana aad bay u wanaagsan tahay laakiin waxay dhihi jireen soomaalidu waxaas layguma dhagalulo ma fahamti marka waa arki doonaa war jiraba cakaaru imaane waa arki doonaa laakiin qof walba aragtidiisa hadduu waxa u arkaa 8 February maadaama ay soo dhowdahay dadkiiba ay jecelo dadkii waan kusoo sawiray waa hagaag aad u mahadsantaha fikirkaaga waa soo dhaweynayaa barnaamijka universalna inaad ka qayb geshid waa kugu soo dhaweynaya dabcan barnaamijyo kalena waa ku kulmi doonaa daawadayaal aad iyo aad baad u mahadsantihiin intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii telefishinka caalamiga ee universal stuudiyaha london iyo ra'yiga madaxweynaha socdaalkiisa puntland iyo galmudug oo iminka marayo oo dabcan aad ka dhiibateen kuwa usoo geli waayey waa ka raali gelinaya barnaamijka waxaa soo saaray cabdalla cumar mudiir barnaamijkuna waxa uu ahaa universal t v iyo ra'yiga waxaa qayb wacan ka qaatay farsamo yaqaaniinta maxamed cabdulqaadir maxamed biibaaye iyo cabdixakiim alfaqi iyo weliba axmed daahir afaro oo isaguna barnaamijka ka qayb qaatay iyo farshaxaniistahana amiin camir oo jooga gobolka alberta magaalada edmonton ee dalka canada daawadayaal meel kastoo aad joogtaan waa maxamed axmed xaaji cagmadhiga oo idin leh intaan u yarahay intaan u weynahay inta jinkeeya daawadayaal waa dhammaantiina meel kastood naga dhehanayseen isma aynaan dhaafina tan iyo intaynu ku kulmayno barnaamijkan lamid ah wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu وسؤال داويني دلك يا إسكالي